galabta waxaan joognaa dooxada waaw waxay ku taallaa magaalada Garowe banaankeeda ku dhawaad waxay u jirtaa 10 kiiloomitir qiyaastii galabta xagan waxa afur noogu sameeyay agaasimaha warfaafinta madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Cali Ciise Naxar marka galabta xagana joogo qurux badan ku qaadanaa dad badan baan nahay oo badan waliba dhanka miidiyaha marka dad badan baan idin bari doonaa nala socda galabta halkan wow baan joognaa saaxiibka Abshirna loo mahad celinaya iyo sidoo kale saaxiibka Cali Naxar oo afurka noo sameeyay maadaama saaxiibka Abshir uu dadkeen bariyay aan iski baro magacaygu Cabdiraxmaan Bulshaawi waxaan ahay sawir qaade iyo muuqaal duuba soo bandhigay bilicda dalka Soomaaliya barasho wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa weeye Abshir Cornel uu mahadsan yahay magacaygu Cabdiraxmaan Aadan Shire oday waxaan ahay meediyaha ku jira sawir qaade iyo muuqaal duuba ah ku sugan magaalada Garowe galabta waxaan joognaa dooxada waaw waxa halkan afur noogu sameeyay saaxiibkii Cali Naxar oo waliba siiba anigu khaasatan in muddo aanu arag maadaama uu ku jiray waxa weeye sheeg halgankii gobolka Sool marka waxaan leenahay Cali Naxar ama santa صاحبي على قدامين أقسم علي عيسى نحر بدنا عي تاجن اسمه عمان هالكن أيو عاو هالكن أيو أفر نوسمي وأفر صبري سبوها أقسم سودو ودوه عبد الرحمن عبده ما سنتي هذه تيم ككلبة عاو حين جونا هذا بحين ورحماتك إلهي كوشوي runtii dhul aad u cagaaran oo dowlin joognaa in halkan sugu nimaadna sharaf bay inoo tahay dhamaanteen waa ku faraxsanahay inaan galabta kulan halkan ku wada qaadano soo dhawaad sida hore ku sheegnaa vlog waxa dhaca qalas vlog agaasimuhuna waa qalas dhalay lascaanood baad ka yimid waana la wareysanaya agaasima ka war xalka lascaano wallahi lascaanood waxay ahayd xarun lagu midoobay sidii looga kor ka qaadi lahaa cadow ku habsaday muddo ka badan 16 sano halkaas oo ku xididaystay in xididada loo aaso halgankeedii baa ka socday meel fiican buu marayaa waa magaalo bay ahay dadkeedii dalkeedii u tashadeen waa magaalo runtii ka soo kabanaysa 15 sano oo mugdi ay ku jirtay mid amni mid siyaasadeed mid dhaqaaleba insha Allah waxaan rajaynaynaa halgankaas oo meel fiican maraya ummadda muslimiinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba ay si fiican u garab istaageen haday tahay adin iyo afba lagu garab istaagay waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto waxaan rajaynaynaa in magaaladaasi dhibaatadii ay ku jirtay ay ka baxdo waxaan rajaynaynaa in uu waa cusub u bariyo waxaan rajaynaynaa inay xarun u noqoto midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka ka socda geeska Afrika ujeedaan baad dhalinyaradu waa wada afurnay soo qurux badan ma qaadanay salaada la taagan yahay oo tukanana muuqaalkan waxa ku daawan doontaa insha Allah caawa dhan waxaan ku soconaa magaalada Garowe gudaheeda sida dhalinyaradu ay caawinayso waqti loo qaadanayo oo isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada ay farxad wada qaadanayaan yoolba joogtaan nala socda